soo dhawaada waa maxamed ibn cumar maxaa kalifa inaad seminar ka qayb gasho isla markaana kasbato xirfado aad awoodi weyso kadibna inaad beeqiso ama dhaqan geliso maxaa keena in aad buug bilowdo akhrintiisa kadibna aad joogteen weyso oo 10 safxo ugu horeeya aad dhaaf weyso macluumaadka qaar iyo xogta qaaran helno dhaqangelintooda iyo joogteynta dhaqangelintaas maxaa naga hortaagan kulankeena maanta kelmadiisu waxay tahay isbedelka maxaa ku diidan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaan maanta ka hadli doonaa waxyaabaha ku diidan isbedelka ama haddaad doonayso noloshaada in isbedel sameyso oo aad wadadii isbedelka cagta saarto waxa diidaya inaad sii joogtayso isbedelkaas ama aad hore ugu dhaqaaqdo wadadii aad cagta saartay ee aad bilowday. waxaan leenahay waxyaabaha ka hor istaagi kara ama ku diidi kara isbedelka waa 3 midood. midda koowaad qodobkooda waxaan leenahay waa in aysan ku cadayn ujeedada ka dambaysa isbedelka. maxaa isbedelkan u sameynaysaa? waa maxay waxa kugu riixay inaad isbedelka sameyso? kuma cadda. tusaale ahaan waxa isbedelkan u sameynaysaa si aad u raali geliso dad kale. wallahi billahi jirkaygaan qurxinaya, six bagan sameysanaya, murqaan la soo baxaya. sababtu waa maxay? si aan dadka raali ahaanshooda u helo wow style way ama gabdhihiyo kaleeto waxaan sameysanaya maaragtay nidaam oo ximiya ama daayadan sameysanaya oo aan jirkayga wasnigiisa iyo culeyskiisa hoos ugu dhimaamay isku caateynayo. sababtu waa maxay? si liidho wallahi isneele way khatar way qoftaan waa shidan tahay iyo waxa la midka ah. amaba waxaan sameysanaya مثلا ama waxa keeni karo isbedelkan kugu riixaya marka hore waxa weeyaan daafica ka dambeeya ama waxa kugu riixaya waxay noqon karaan mowduuc jirta markaas ama wax lagu daadsan yahay socod. tusaale ahaan in ilkaha bira lagu xirto dad far badan aad ilkaha bira ugu xirtaan Soomaha. sababta ma ahan in ay u baahan yihiin ficlan in ilkahooda bira ku xiraan. u fiirso dad far badan arkay waxa waaye heblayn ilkaha bira ku xiratay, hebelna ilkuhu bira ku xirtay, markii la wada qosla ay kulli bira ka soo wada muuqda. saadartii anna inaan bira ku xirto way. marka waxa kugu riixay isbedelkan markiisa hore wax weeyaan moodada iyo habada iyo meesha loo badan yahay sida style-ka maanta jira ah ma ahan wax kale. amaba waxa kugu soo riixaya cabsi. wallahi bila waxaan sidan u sameeynaa laana waxaan ka cabsanayaa sidan. waxaan u akhrinayaa buug مثلا ka hadlay sidee ninkayga ugu dabacsanaada romantic isaga dhigaa laana waxaan ka cabsanayaa in la furo. tusaale ahaan yani gabdhaha idan haddii yihiin waxyaabahaas waxa ku riixaya ama waxa lagu daadsan yahay dartood waxa ku riixaya haddii isbedelku uu riixaya ama ay yihiin maaragtay dadka raali ahaanshahooda saa u hesho ama ay tahay cabsi intaba isbedelkeeda wax ka joogtoobaya malahan ama isbedelka ku bilowda saddexdaas mid kamida hore uma sii soconayo. dayb maxaa xalku yahay? xalku wuxuu yahay isbedelkan waa inaad u sameynayso naftaada darteed, jacayl aad naftaada u qabto, mudnaan ay mudan tahay naftaada. waxaan wanaagsan inaad kusoo biiriso naftaada way mudan tahay, buugaan wanaagsan inaad akhriso naftaada way mudan tahay, seminaarka inaad ka qayb gasho wacyiga kor u qaado naftaada way mudan tahay. aniga dartay ayaan sidaa u sameynaya. okay, qodobka labaad keeni kara in isbedelkii aad bilowday joogtoobi waayo waxa kamida wuxuu yahay afwan in aad مثلا naftaada dusha aad ka saarto waxyaabo fara badan aysan qaadi karin xamili karin. مثلا waxa lagu yiri wallahi billahi life style-ka oo dhanka cuntada ama healthy food-ka cuntada caafimaadka waxa weeyaan kan 20 sano 30 sano 40 sano waxa soo cunayso cuntooyin qashin ah. hal mar marka isla xamaasad intay ku qaadaan leedahay kan waa dhaqan gelinaya cuntada ana week 2 week bil ma kula sii soconayso meeshaada ku soo laabanaysa laana culays fara badan naftaada saartay, waxyaabo fara badan la qabsanina hal mar ku sii deysay, exercise fara badan iyo tamaariin fara badan iyo layli fara badan u dirtay ayna ka bixin. marka hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba quraankiisa uu nagu leeyahay la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, warna fi masaarna xilka masaarna kuma khasbana waxaynan awoodin ama qaadi karin. adiga maxay isu moodaa marka tartiibso, marka macluumaad fara badan hesho, mid u qabo, mid u dhaqan gali, tartiib hadaad wax akhrin jirin akhriska uu ku fududeyno kale 2 page maalinkii akhri. marka bil ku wadi 13 5 ka dhig saas u soco. okay, qodobka saddexaad oo asagana noqon kara waxyaabaha ku diidi kara in aad isbedelkii joogteyso waxa kamida wuxuu yahay
in aad مثلا filanayso natiijooyin waaweyn expectation weyn iyo tawaqucaad oo aad iyo aad u sareeyaad dhigatay wallahi 2 week gudahood waxaan ku ridayaa 5 kiilo allah 2 week gudahood ma 5 kiilo ku ridaysaa 2 week gudahood markii la gaaro hadii aad 2 kiilo riday waa niyad jabaysaa saadaradeed waxa ka dhigata isbedelka safar iyo journey iyo rixla ka dhigo aad ku raaxaysanayso inta aad ku guda jirtid ee aad natiijadii bis aad indhaha ku taagan iska ilaali marka dhagdhaga ha ku dhagdhagin natiijada طبعا natiijo u baahannahay waana filanayna laakiin ayada ha isku xirin ku raaxayso isbedelka aad sameynayso marba tartiib u samee saadaradeed waxa sahlan inaad isbedelkii sii joogtayso oo aadan ka harin haddaan soo koobno marka waxaan soo sheegnay waxyaaba isbedelka noo diidan ama naga hortaagan waa 3 kow in aanan garanaynin daafica iyo waxa nagu riixaya isbedelkan oo ka dambeeya oo qodob koowaad ah oo waxa laga yaabaa waxna riixaya inaysan ahayn jacayl aan naftaan u qabnay mudnaanteeda waxa laga yaabaa inay yihiin ama cabsida aan ka cabsanayn ama raali gelin qof kale aan raali gelinayno in uu nagu riixayo isbedelkaas qodobka labaad waxaan sheegnay in isbedelka aan hal mar inta xamaasowno aan dusheena hal mar wada saarnayno waxyaabii aan rabin inaan fulino exercise-yadii book 5 book aan akhrinayaa bishaan xamaasadaas tirada badan ayadana noo diidaysa qodobka saddexaad isagana waxaan ku sheegnay in aan filanayno natiijooyin waaweyn kuwaas oo noo keeni kara inaan niyad jabno annagii oo aanan gaarin heerkii aan rabnay isla markaana aan joojino isbedelkii waa mahadsantihiin